Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waan idin salaamay dhammaan walaalaha ku xiran channelkeena. Waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago dhowr tallaabo oo aad kaga faa'iideysan karto waqtiyadaada firaaqada maadaama aynu ku guda jirno xilliyo ay fasax yihiin ama xiran yihiin gebi ahaanba goobihii waxbarashada iyo shaqooyinka. Taasina ay ugu wacan tahay xanuunkan dunida ku faafaya ee coronavirus-ka. Intaanan u gudagelin tallaabooyinka aan rabo inaan idinla wadaago, waxaynu dhammaanteen ka warhaynaa muhiimadda uu leeyahay waqtigu. Inuu waqtigu yahay nolosha iyo cumriga, in daqiiqadii tagtaahi aysan dib kuugu soo laaban doonin weligeed, laakiin badankeena kuma baraarugsan oo waynu moognahay. Waxaana daliil u ah xadiiska Nabiga calayhi salaatu wasalaam, nicmataani mawbuunun fiihimaa kathiirun min annaas, as-sixatu wal-faraaq. Macnaheedu tahay laba nimco oo dadku ku kadsamayn, waana caafimaadka iyo firaaqada. Sidaas darteed waxaan kula wadaagayaa ilaa iyo 5 tallaabo oo haddii aad maalmahaadan firaaqada ku dabaqdo aad noqon doontid sida qof meel dheer u aada cilmi iyo inuu noloshiisa horumariyo, garaadkiisana kobciyo. Yacni aadan noqon doonin qof maxbuus maalmo badan guriga ku ahay. Tallaabada koowaad waxa weeyaan inaad si qoto dheer u fikirto maadaama aysan jirin wax ku mashquulinayahay. Waa inaad si taxaddar leh meel u fadhiisataa, kadibna aad ka fikirtaa noloshaada iyo mustaqbalkaada. Waxaad isweydiisaa halkee bay noloshaydu ku socotaa, maxaan dhab ahaan u doonayaa inaan sameeyo, maxaan u baahanahay inaan noloshaydu kusoo kordhiyo aan kaga faa'iideysan karaa fursaddan babliga ah ee sida kediska igu soo martay. Dabeecadahee iyo dhaqamadee baan doonayaa inaan naftayda baro oo aan ku tarbiyeeyo anigoo ka faa'iideysanaya fursaddan. Kuwaanse doonayaa inaan gebi ahaanba ka takhaluso oo aan ka koro kana weynaado maadaama aysan wax nacfi leh noloshayda kusoo kordhinaynin. Waxaan rajaynayaa inaad jawaabo ku habboon oo ficil leh u heli doonto su'aalahaas. Qodobka labaad waxa weeyaan wax akhri. Akhrisku waa shayga keliya ee aysan ku kala duwanayn muslimka iyo gaalka, taajirka iyo faqiirka. Keliya waxaa laga yaabaa in lagu kala duwanaado waxa la akhrinayo, laakiin ujeedka guud ee akhriska ah waa laga siman yahay. Waxaad soo iibsataa buugaag haddii ay macquul tahay, kadibna la tag meel adigoo akhrinaya, naftaadana horumarinaya. Waxaa xataa laga yaabaa inayba guriga iskaga kaa yaalaan buugaag laakiin aadan hore ugu baraarugsanaa jirin akhrintooda. Kuwaasna akhrintooda bilaaw. Sidoo kale qaabab kale oo online ah oo wax lagu akhriya ayaa jirta. Waxaadna ogaataa dadka wax akhriya waa dadka ummadaha hogaamiya. Sidaas darteed isbar kuna tarbiyay naftaada caadada wax akhriska. Qodobka saddexaad waxa weeyaan qur'aanka dib ugu laabo. Haddii aad horey u ahayd qof aad u mashquulsan oo aad marmarsiyo ka dhigan jirto inaadan haynin waqti kugu filan oo aad kitaabka ku kala furto, hadda waxaad haysataa fursad weyn iyo waqti badan oo aad ku akhrin karto qur'aanka, kuna xifdi karto suurado badan oo qur'aanka ka mid ah iyo xitaa jusas. Waxaadna ogaataa qur'aanka waqtigaada qur'aanka uma baahna, laakiin waqtigaada iyo noloshaada ayaa u baahan qur'aanka. Kitaabka dib ugu laabo waxaa hubaal ah in qalbigu kuu xasili doono, noloshuna kuu hagaagi doonto. Qodobka afaraad aan doonaya maanta inaan kula wadaago waxa weeyaan jimicsi samee. Maadaama ay joogsatay shaqadii maalinlaha ahayd ee jirka ama goobihii aad u aadi jirtay jimka, waxaa qasab ah inaad gurigaada ku samaysid exercise si aad u hesho caafimaad iyo firfircooni dheeri ah. Waxaadna ogaataa cudurro badan oo ku imaada fadhiidka tirada badan iyo exercise la'aanta inay gambad u yihiin in jirka difaaciisa hoos u dhaco. Sida hadeertaan isku raaceen dhammaan qolyaha caafimaadkuna cudurkan hadda faafa Ilaahay inaga haayo wuxuu ku imaadaa marka immune-ka jirka uu hoos u dhaco, yacni difaaca jirka uu hoos maro. Sidaas darteed ku dadaal jimicsiga iyo caafimaadka intaba. Qodobka 5 waxa weeyaan wax qor. Waxaad soo qaadataa qalin iyo waraaq, kadibna waxaad qortaa wax maankaaga ka buuxaya, dibaddana u soo saar. Waxaa macquul ah inay kugu soo dhacdo fikrad hal abuur leh oo wax weyn ku tarta, taas oo fursad u weysay ee maskaxdaada uga soo baxdo. Shantaas qodob baan rabay inaan kula wadaago. Si guud marka waxaad dib ugu laabataa noloshaada, mid adduun iyo mid aakhira intaba. Waxaad dib u hagaajisaa salaadaha, xitaa maadaama aynu ku jirno bishii Shacbaan, waxaad isku daydaa inaad isbuucii hal maalin ka soonto. waa caafimaad. ugu dambeyn Allah subxaanahu wa tacaala waxaynu ka rajaynaynaa inuu xawaasheena hagaajiyo, cudurkaana inaga kor yeelo isagoon waxba naga galaafan.
waxaan rajaynaynaa dhammaanteen insha Allah in bisha Ramadaan inoo dhalato iyadoo masaajidadu inoo camiran yihiin, ilaahayna nagama xarimo dhegeysiga iyo macaansiga salaadaha taraawiixda. intaas baan rabinaa in la wadaago. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.